السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada ama faragis maalin kale qurux badan isniin insha Allah maanta waa maalin isniin ah. Suuq waxaan ka rabnaa haduu ilaahay inuu noo dhaqaaqo maadaama intii haddii suuq iska xirnaa. Marka insha Allah hadda waxaan rabaa inaan halkaan trade ka qaatay oo suuq hadda oo maray. Marka trade-kaasaan rabaa sababta aan u qaatay iyo wixii aan ka rabo haduu ilaahay idinla wadaago. Marka horta markii Asian low oo ujeedin Asian low markii lasoo garaacay marka bidix fiirisid Asian low xaggana way ahayd markii lasoo garaacay kadib rejection oo sameeyay rejectkaas aan ku qaatay waxaan rabaa ilaa Asian high-gana wado maanta inuu ii saarnaado haduu ilaahay idmo zonekan haduu gaarana kulley waxaan samayn doonaa zonekan markuu gaaro halkan in badan oo qaadan doonaa qaybtan ku markuu kan garaacana biyaha qaar aan xiran doonaa haduu ilaahay idmo taas waxay noqon doontaa ugu yaraan 34 bip meelahaas markuu gaaro qaar xiran doonaa qaar kale waxaan deyn doonaa ilaa all the way up marka insha Allah kulley sidaas oo trade-kan suuqa markasta wuxuu u baahan yahay inaa patient ay samaysatid oo aad iska sugtid xilligiisa waad arkaysaa mar meelahan soo garaacay laakiin waxaan sugayay inuu korkan aado kadib eridan kusoo laabto kadib zonekan meelahan oo ku meereysto kadib meesha imaado all the way up soo sii garaaco taas waa scenario koowaad waxaa macquul ah suuqa inuu hoos aado zonekan uu jabsado zoonka kale uu jabsado oo stabilize-kana uu garaaco taasna macquul waaye laakiin si fiican u taxdiri doonaa haduu ilaahay idmo maadaama kanalkan hadda socdo 15 minute-ka hadda markaan aan iska masaxo kanalkan 15 minute-ka hadda socdo markaa fiirisiin si fiican wuxuu kii ka horreeyey wuxuu samaystay week hoos iyo week kor labadaba wuu samaystay week hoos iyo week kor labadaba wuu samaystay kanalkan week hoos uu leeyahay week kor hadda wuu wataa 15 minute-ka waxaa ka harsan 2 daqiiqo wax ka yar marka 2daas daqiiqo hadduu zone keeno oo zonka koreeyo eridan hadduu ku xirmo 2daas daqiiqo marka waxaan samaynaa hadduu ilaahay idmo stop-loss-keena weekan usoo dhaweyn doonaa muu dayn doono all the way meesha hadda uu noo yaalo ugu yaraan waxaan keeni doonaa halkan si aan u qasaarno khasaare ku talagalnay wax ka yar si aan u qasaarno haddii uu sugu soo jeesto oo uu imaado intrigeena uu ku xirmo 2daas daqiiqo haddii intriga uu ku xirmo waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay idmo waan sugi doonaa waxba ma soo rarayno stop-loss-ka laakiin haddii oo zonekan oo hadda uu joogo zonka koreeyo uu ku xirmo ama zonkan hadduu ku xirmo waxaan samayn doonaa stop-loss-keena wax yar ku rarayna ilaa all the way up halkaasaan geyn doonaa anigoo waxba is wareerinin hadda trade-kii wuxuu ku socdaa inuu jabsado 15 minute-kan kii ka horreeyey oo Asian low soo taabtay 15-ka markuu garaaco kadib markaas waxay noqon doontaa in si fiican usoo dhaweeyo maxaa la dhahay SL-ka zonekan sheega SL-kiina keensado marka insha Allah suuqan sidaas u shaqeeyaa ma ahan in oo la qasbayo ma ahan in oo maxaa la dhahay marba wixii aad ka helaysid asal suuq qaab u shaqeeyaa aadna qaban kartaa marka 1 hour markaan tagno badan ani waxaan ku salayaa stop-loss-kiga 1 hour-kii hore loogiisa 1 hour-ka hadda noo socdo oo ah kan hoostiisaan ku saleeyay marka mararka qaar markaa geystid wiiga 1 hour-ka inuu kaa saaro oo iyuu kor aadaya taas hore aragnay marka ma rabno inaan space inaan siina rabnaa wiiga hoostiisa inaan space siino bodiga horta masaan doono laakiin wiiga hoostiisaan saaraynaa space aan siinaynaa aduu xaggu noo jooga 1 hour-kaas kale hoostiisa noo jooga laakiin haddii oo trade si fiican loogu dhaqaaqo kadib waxaan samayn doonaa SL-ka waxaan keeni doonaa qaybta wiiga ayaan keeni doonaa sidaasna waxay noqon doontaa qaabka loo manage gareynayo trade-kaada haddii trade-kii waxaa naga harsan wax ka yar 30 ilbiriqsi ka harsan 30kaas ilbiriqsi hadduu ku xirmo tusaale ahaan zonkeena oo hadda aan rabno faa'iiduna wada haddii asoo faa'iidaas noo wada hadduu ku xirmo zonka hadduu ku xirmo ama zonkan marka meesha ku furmay intuu dhexaysa hadduu ku xirmo still waa rajadan way iska fiican tahay waa iska sugeynaa trade-ka ka degdegayno waxaan usoo laabtay inaan trade-kii oo 15 minute ugu xirmay si fiican uu ku xirmay 15 minute-kii wuxuu ku xirmay zonka aan rabnay 15 minute-kana waxaan rabnaa karnaa hadduu ilaahay inuu zonkan noo gaaro hadduu zonkan noo gaaro kulley trade-ka hadda ani SL-ka wax yar waa soo raray qaybtii uu joogay waa ka soo raray qaybtana keenay SL-ka waxaan rabaa markaad 15-kan markuu xirmo oo 9 daqiiqo ka dhiman markuu xirmo hadduu zonkan ku xirmo labadan zone intuu dhexaysa hadduu ku xirmo SL-ka waxaan keeni doonaa intriga kadib trade-kana waxaan ka qaadan doonaa partial markuu 30 bip wax yar oo wax 30 bip markuu gaaro kulley partial ka qaadan doonaa marka muhiimaddu waxa waaye hadda 30 29 bip uu imaaday maruu 29 bip uu ku dhuftay adoo ujeedin 29 bip
laakiin waxaan ka rabnaa inaan kanalkan oo zonkan yeelo oo ah kanalkan zonkan yeelo markaan calaameeyo kanalkan u dhexeeya wiigiis markuu noo gaaro kadib waan xirin doonaa haddii laakiin nagu soo laabtan kulley waxaan keeni doonaa slka waxaan keeni doonaa intriga keeni doonaa marka simple waa iska fududahay wax dhib ah ma jira waxay u baahan tahay suuqa inaad sugtid oo markii waqtigiis la gaarona aa waqti siisid soddonka aan sheegnay 29 bii buu dhimaaday laakiin all the way up laakiin qorshahan waxa waaye ilaa korkaas inaan wadi doono hadduu ilaahay idmo haddii lacalla uu nagu soo jeesto tradekan waxyaalaha suuq lagu kala tegay waxay tahay risk management haddii lacalla tradekan nagu soo jeesto maxaa dhacaya tradekan nagu soo jeesto waxaa dhici karo in kanalka ku horeeyey oo ku xirmay hadduu zoonkan uu kusoo dhawaado waxay noqon doontaa tradeka inaan iska wada xiro oo aan sugin tobankan bib ama tobanlabadas bib hadda aan ku talagalay inaan khasaaro sababtoo ah hadda waxay u wadaa 20 bib ku dhawaad ii wadaa 20 wax la jiro marka inaan 20 ka faa'iida aan qaadan waayo haddana 10 kale aan khasaaro taas horta wax shaqaynaa maahan waxyaalaha aan rabaa taas marka wixii faa'iida aa ka heli lahayd trade ka qaado haddii faa'iido ka weysidna kolley suuqa qarax ka qaad hadda zoonka hadda uu joogo zoonkan oo jeedin rejection badan waay 1 2 3 4 5 6 muddo saacadii ka badan oo waxaa lagu celinaya rejection laakiin zoonkan kale wuu gudbay rejectionkan markuu gudbo hadduu gudbo wax celinaa ma laha kuwan all the way up qaybtan marka suuq wax laga fiiriya qaybta bidix si waxyaalo uu sameeyey hadda rejectionkan markuu sameeyey waa kora loo waday waa la soo celi kan kora loo waday waa la soo celi kan kora loo waday waa la soo celi kan waa la soo celi kan waa la soo celi kadib kana ka baxsaday marka waxaan rabnaa zoonka hadda uu joogo oo hadda week kanalkan hoostiisa kanalkan kale jooga rejectionada uu jooga inuu rejectionada noo gudbo muhiimadan waxaa rejection inuu noo gudbo waqti qaadan doontaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inay saacad ku qaadato mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu 15 minute kanal inuu waxaan dhan ku jibiyo all the way up korkaas uu ku aado sidii micihii trade aan qaatay uu noo sameeyo taasna macquul inuu sameeyo marka muhiimad waxa waaye sugitaanka waa muhiimadda waxa lagu kala tago waxa waaye sugitaankaasaan iska sugaynaa waxba ma degdegayno tradeka hadda maasha allah wuxuu noo wadaa haddaan fiirino wuxuu noo wadaa 29 biyu kusoo laabaday 29 biyu hadduu wadaa halkaas waa ku xiri karaa si aan faa'iidii u kala qaato laakiin waxaan rabaa qorshayga ah inaan meeshaan markuu imaado inaan xiro marka inaan wax yar ku xiro ma rabo taas waxaa ka xiga keliya inaan excelka aan soo raro oo intriga aan keeno si aan u ogaado suuqa bilaa khasaar si aan u baxo haddii kale wixii faa'iida aan heli lahaa in keer inaan qaato taas ma shaqayn doonto mararka qaar suuqa waxyaalaha adiga aad sugaysid maahan wax kaloo iska sameeya taasna adig ma qorsheyn doonto laakiin adigna wax laga rabaa balan inaa lahtid marka balankan waxa waaye zonkan oo rejectionadan badan ka jiraan zonka rejectionada ka jiraan inuu tradeka noo jibiyo hadda uu joogo zonkan uu joogo hadda ujeedin calaamada markaad saaro zonkan noqon doontaa 15 minutka hadda 5 minute ka harsan 5 minutka hadduu dhamaado oo canal bearish ku xirmo taas waxay noqonaa risk management inaan la imaano ugu yaraan asarka inaan soo rarno oo intriga keenno kadib khasaaraha si aan faa'iida aan wadno si aan wada khasaarin kulley waxna inaan qaadan doono taas markaasaa laga yaabaa laakiin hadda maadaama kanalkas ka socdo oo mar hoos aaday marka hore aaday ma kusalayn doono wax oo qorshe ah laakiin waxaan ku hayn doonaa zoonkiisaan ku hayn doonaa ma degdegayno hadduu ilaahay idmo marka insha allah tradeka markaa qaadatid waxaa lagaa rabaa inaad shaaha soo qabsatid ka sugtid tradeka meeshuu aadayo meesha kale la socotid hadda markuu zoonka markuu imaado hadhow i calaamaysan markaan arko inuu zoonka imaadana kadib eselkan aan soo raraa waxaan keeni doonaa intriga kadib basharkan ka qaadan doonaa haddii lacalla kanalkan hadda socdana uu ku xirmo kanalka hadda socdo hadduu ku xirmo maxaan lahay kanal hoos u socdo oo hadduu gaduud isku bedelo kale waxay noqon doontaa inaan eselka aan keeno intriga inaan keeno halkaa inaan keeno eselka laakiin 4 minute ka dhaman hadda afartaas daqiiqa iska sugaynaa hadda 12kaas aan u deyn doonaa 12 bib oo hoos aan u deyn doonaa afartaas daqiiqo haddii wax isbedel weyso tradekasaan nala meereysto kulley anigana waa la meereysan doonaa hadduu ilaahay in lasla meereysay noqonaya ila meereyso waay markaas buuggaada soo qabso kutubkaada soo qabso wax iska akhriso tradekaada iska sug waa gashay mar haddaad tradeka gashid go-aan kale ma lihid inaad tradeka ka baxdid wax ma kuu tarayso waxaa lagaa rabaa commissionkii iyo splitkii iyo wixii dhan adaa lagaa rabaa marka tradeka haddi saad ujeedin wuxuu sameynayaa inuu hoos soo aado rabaa laakiin weli 5 daqiiqa xataa ma la gaarin 4 daqiiqa wax la jiraa ka dhiman suuqan ma ahan in adi controli kartid
waxaa laga yaabaa shantaas daqiiqo wixii maanta dhan oo u waday badan inuu hoos usoo wado oo zonkan imaado oo zonkan imaado laga yaaba marka qaar aan manage garan weyno. taasna macquul waaye. taasna balan b waay kulley qorshaheena ku darsan doonaa hadduu ilaahay idmo. laakiin haddii shantaas daqiiqo uu zonkan ku xirmo oo zonka unoo joogo eridan meel ka sareysa hadduu ku xirmo iyo eridan intoo dhexeyso meel ka sareysa zonka hadduu ku xirmo shantaas daqiiqo waxay noqon doontaa inuu suuqa nala meereysanayo mar inta imaanayo mar inta imaanayo mar inta imaanayo haddana mar inta imaan doono kadib inta imaan doono kadib zonkeena noo garaaci doono. sidaas waa sida aan ka rabno waayo. laakiin haddii si xawli kusoo darto oo zonka imaado si xawli anakana waxaan samayn doonaa inaan tradekii aan keenno khasaarihii aan keenno khasaare inaan keenno maxaa lalahay intrig inaan keenno kadib suuq aan wada xirno si xawli aan ku wada xirno sidaasay noqonaya. marka insha allah taas waaye waxyaalaha oo risk managementiga maxaa lalahay laga hadlayo kule waxyaalahaas ugu muhiimsan. marka insha allah de 2 daqiiqo iyo wax yaraa ka harsan 2 daqiiqo kulle had waa soo dhowdahay tradekii 15 minutekan kalena inuu xirmo. suuqan markasta ny ay furanto wuxuu samaystaa jihadii u socday ma jihadii kale aad u jeesanaa mararka qaar. marka haddii lagu soo jeesto oo zonkeena oo zonka hooseeya imaado waa markii meelahan marka hore imaado oo markaa xira lexen waaye hadda maadaama minute ka harsan tahay waxaa laga yaabaa si xawli inuu kusoo daato oo uu ku imaado intrigeena kadib asalka uu ku aado. marka siduusan taas u sameynin marka waxaan qorsheynaynaa inaan managementigana aan isha ku hayno taas naftirkeeda waa muhiim maadaama tradeka faa'iido ku wado trade markuu faa'iido ku wado markaas waa managementiga si fiican u samayn kartaa. laakiin markuu khasaaro ku wado inaa welwelshaa laga yaabaa aad dhahayd okay ma suga asalka ma u daya maxaan ku sameeyaa wax ma xiraa taas waxaa laga yaabaa inaa welwel ku qaadid. laakiin markii tradeka faa'iido ku wado waxaa samayn kartaa okay faa'iidaa haysataa waa ujeedaa waxaa samayn kartaa faa'iidadaada inaad qaar qaadatid si oo hadhow markuu hoos kula soo aado aadan u wada khasaarin taas mid waay. laakiin qofki taas rabinna oo go'aankiisa ah inuu halkan ku xiro halkan inuu ku xiro ama meel ka sareysa inuu ku xiro qofki go'aankiisa kaas asina waa inuu sugaa waxba iswareerinin. laakiin hadduu kusoo jeesto tradekii oo hoos imaado zonkan oo trade kusoo jeesto oo zonkan oo meesha ku furmay meel ka hooseysa hadduu imaado tradekii oo zonka hadduu imaado marka waxay noqonayaan management laga imaatid aad suuqa iska xirtid. laakiin hadda waxaan u dayn doonaa inuu zonkan oo in badan laga soo reject gareeyey oo laga diiday tookadii kor markii hore markuu kor aada xataa kandhaladan dhan la diiday in oo kor aadaan lasoo celiyey kadib marka kandhalkaasaa rabnaa inuu noo jibiyo 1 minute aan loo hartan 1 minute waa iska sugaynaa waxba degdegi mayno insha allah hadduu ilaahay idmo waa suuq waan daawan doonaa wixii update ah kulley waa idin wadaagi doonaa hadduu ilaahay idmo. السوق waxaa u malaysaa 15 wuu xirmay 15 kale hadda wuxuu ku furmay gap hoos uu ku furmay week hoos uu soo doontay laakiin wax hadda isbedel hadda aan u jeedno oo zonka aan rabnay suuqa uu ku xirmay wax isbedel hadda aan u jeedo ma lahan. marka waxaan samayn karaa hadda waxa ii furan keliya inaan asalka aan keeno intriga wax kale ii furan ma lahan. tradeka waxaan ku manage garan doonaa asalkii waxaan keeni doonaa intriga week inuu soo qaato ma rabo 15 minute ka hadduu week ugu soo qaato waxay noqonaysaa wixii aan faa'iidada aan waday dhan 20 bip ilaa 9 bip oo faa'iida aan waday dhan inuu ii qaato marka 13 bip aan ogolaa xataa waa u diidaa hadda marka waxay noqonaysaa inuu week iga saaro suuqa meeshii aan rabay
inaan faa'iido ka qaato, inaan weegan maxaa lahay aan ugu baxo intriga, suuq intriga inaan keeno. Ana suuqa markii saas sameeyo wuxuu sameeyaa inuu zoonka imaado oo haddana marka kor aadaa. Laakiin aniga muhiimadeena ma ahan inaan hadda mar kale aan sii sugi doono hadduu ilaahay hadduu trade kale na siiyo okay waay. dadka intrigiisa saxda ah hadda meelahan uu yahay hadda meeshuu joogo waa intrigiisa saxda ah. Laakiin week dheer inuu soo qaato ma rabno. Weegiisa waxaan rabnaa inuu meelahan inuusan soo dhaafin weegiisa. Kanalkan hadda weyn bandhigiisa inuusan soo dhaafin weegiisa, kadib kor aado. Marka muhiimadda ay leedahay inaa kanaliska aa baratidna waxa waaye suuqaana la socon kartaa naftirkiisa. Kanalkan 15 minuteska haddii ay noqoto oo lowgiisa qaybtan oo esraka haddaan dhigana xataa tusaalahaan kanalka hadda si xoog soo socdaa waxaa laga yaabaa inuu kanalka nuskiisa inuu soo jibiyo, weegiisa uu imaado, dib suuq reverse uu sameeyo oo meesha rabna inuu aado all the way up meeshaas inuu aado. Siyasan taas u dhicin marka waa inaan iska ilaalinaa, khasaaraha waa inaan iska ilaalinaa. Marka waxaan sameynaynaa waxaan keensanaynaa khasaaraheena, waxaan keensanaynaa eber suuq inaan ku kala baxno eber maadaama isniin ay tahay. Isniinta way iska dhib badan tahay, ma fududa isniin in la trade gareeyo. It's not easy isniinta, maalmaha kale ka fiican. Isniinta suuqa zaa'id waa waxa waaye jihadiisa saxda ma aadayo, wuu kala wareeganaa. marka maadaama saas tahay, 20 bib oo 9 bib kuley waxay noqon doontaa inaan eber suuq aan ku xiri doono, ama inuu ku laaban doono zoonkeena iyo zoonka koreeya inuu ku laaban doono. Taasna waa iska sugaynaa, waxba ma degdegi doono. suuqaana 15 minute iyo 15 daqiiqo wax laga qaadayo. suuqan wuxuu u baahan yahay inaad wax badan aad sugtid kadib si aad faa'iido u heysid. haddaad degdegtid kolley waxay noqon doontaa ayaw ayaad suuqa ka bixi doontaa. marka waa inaad sugtaa, sugitaankaada waa inuu bataa. inkasta sugitaankaada uu badan yahay waxaa faa'iidaada badan. trade markaa qaadanaysa waa inaad sugtaa, aadan trade qaadanin. markaad trade qaadato waa inaad sugtaa. khasaaraha waa inaad manage garan kartaa oo aadan maxaa lahay oo aadan la sugaynin ilaa khasaaraha uu kaaga dhaco. faa'iida markuu ku wado waa inaad sugi kartaa ilaa faa'iidadaada oo meesha aragtid ilaa ay kaaga qaadanayso. aadan soo cararin oo suuqa ka cararin. sababtoo ah markaad ka carartid suuqa wuxuu sameynaa meeshii adi oo ahayd qorshaha ahaa oo zoonka loo socday oo qorshaha zoonkan ahaa zoonkan inuu aado, zoonkan aado oo korkaas meesha u sareysa inuu aado. hadhow meelahaas markuu maraya hadda mar kale aa suuqa isku tuuraysa inaad buy aa qaadatid. kadib haddana wiiga kulu soo qaadana haddana kadib suuqa kor u aadaa. waa 2 mar aa suuqa saartay. marka koowaad faa'iidadaada wax badan ma ka xiran oo iskaga tagtay. marka labaad trade kala qaadatay haddana wuu kaa saaray haddana. badanaa waxaas uu sameeyaa. marka muhiimadda ay leedahay waxa waaye in la sugo waa mid lagu kala tago waaye. markaas sugaynaa wiigiis iska dhamaysto. suuqa wiigiis markuu dhamaysto kanalka wiigiis markuu dhamaysto arkayna hadda weli 10 minute ka harsan, waqti badan ka harsan. mararka qaar waxaa laga yaabaa hadda waxa waaye haddana 4 hour kanalkiisa xirmaraay. 4 hour kanal markuu xirmaayo marka wuxuu samaystaa isna naftirkiisa 4 hour kanal waxaan markaa iska xiro ama iska qariyo. tusaale ahaan 4 hour kanal tusaale ahaan markuu suuq uu leeyahay hadda fiiri 4 hour kanalkan zoonka intuu imaaday markuu furmay zoonkan uu ku furmay, zoonkan uu ku furmay wuxuu sameeyey all the way waxaa la sameeyey hoosaa la imaaday kadib kor haddana inta laga celiyey. intaasna 4 hour 4 hour ay dhaceen. hadda kan halkan lagu furay hoosaa la imaaday. waxaan rabnaa marka inuu haddana zoonkan uu ku xirmo oo 4 hourka kale uusan aadin lowgiis 4 hourka inuusan aadin. muhiimadeena taas ah. marka 15 minute aan tagna aan aragno wuxuu sameynaa suuqa. 15 minute kad markaa imaano tusaale ahaan 15 minute markaa imaano waxaan arki karnaa calaamadaha iga qarsiin. 15 minute markaa imaano waxaan arki karnaa kii hore wuxuu ku xirmay kan hoos u socda laakiin weli bullish waay. kanalkan kale haddana asla weegi uu soo qaatay wuxuu u socdaa kor, zoonkan u socdaa ama zoonkan kale u socdaa. waa waxay meesha aan rabno waay zoonkan inuu noo garaaco. laakiin waxyaalaha dhibka badan waxa waaye eridana la diidan yahay in la trade u dhaafo. zoonkan ayaa in badan laga soo celiyey, zoonkan wuu diidan yahay. marka zoonka maadaama in badan laga soo celiyey anakana asalkan wuxuu noo yeelaa eridan noo yeelaa, meeshaan ka galnay ayuu noo yeelaa. haddii lacala ay noqoto oo tradekii si fiican loogu dhaqaaqo kor noo aado waa middaa rabnay. zoonka markuu imaado wax qaaraan xirin doonaa
zoonkan kalena waa la sugi doonaa ilaa nala gaaray. marka wiiga waxyaalaha oo 15 minutka dhibka uu leeyahay 15 minutka waxaa waaye tusaalahaan hadda markaan soo saaro calaamadahan aan soo saarano 15 minute dhibka ay leedahay 15 minute dhibka ay leedahay waxay tahay marka 15 minute uu furmayo wuxuu samaysaa suuqa wiig dheer oo kula soo aadaa hoos wiig dheer hoos soo aadaa ad 15 minutkaan fiiri wiig kor soo aaday kor aaday hoos wiig dheer adan inta ku xirmay marka hoos ay leeyihiin wiig ay leeyihiin marka wiigi waa waxyaalaha laga cararo oo suuq ka saaran waa wiigaas waay wax leed suuqa kusoo jeestay ka carar markaa ka carartid suuqa haddana wuxuu aadaa qaybtii uu socday oo jihadiisa saxda ahayd ayuu aadaa korkaas uu aadaa ama hoostaas uu aadaa jihada heshiisana waxa ugu jirtay taas ay ku xiran tahay marka 15 minutes hadda waxaa ka harsan 7 daqiiqaad sugaynaa 7 daqiiqa hadduu oo trade-ka naga saaro okay suuq meeshaan kusoo xiri doonaa hadduu naga saarin oo zoonkan noo imaado oo meeshaan rabnay oo noo imaadona waxa waaye waxaan waan soo xiri doonaa maxaa lahay casharka waan soo xiri doonaa sababtoo ah waqti inuu dheeraado ma rabo casharka ilaa 15 daqiiqo inuu gaaro ma rabno marka haddii zoonkeena oo zoonka hooseeya u imaado oo nagu soo jeesto halkaasaan ku xireynaa 15 minutkan hadduu oo kor noo aado oo zoonkan kale noo jibiyona kulley eeda markuu imaado kulley soddonkan dib markaan helno kadib eedana meeshaan ku manage garan doonaa 35 bib 36 bib meelahaas waay markuu imaado kulley isana meeshaan ku manage garan doonaa marka insha allah intaasay noqon doontaa waxaan sugno waa 15 minute hadda noo socdo meesha nala aado intaasaan sugaynaa hadduu ilaahay idmo suuq waxaa umalaysaa in oo 15 minute hadda oo naga saaray intrigeena uu imaaday marka insha allah halkaasaan rabaa inaan kusoo xiro waxyaalaha aan rabo inaan soo bandhigan waxaa waaye sababtoo ah trade marka qaadatid inaad sugi kartid markuu kuu soo jeestisana waa inaad manage garan kartid labadaas waa waxyaalaha ugu muhiimsan marka insha allah kulley maanta casharkeena halkaas ayaan kusoo xiri doonaa hadda tradekii hadda waxaa u malaysaa in oo si fiican usoo jeestay oo la dabiyo down usoo socdo kan uu jibin kan hadduu soo jibiyey oo kan jibiyey kan inuu jibiyey wax u diidaya ma lahan marka anaka waa ka baxnay trade halkaas ugu baxnay meesha intrigan inuu ahaa marka insha allah kulley suuqan sidaas uu shaqeeyaa qofkii raba oo in wax ka barto kulley waana la soo xiriiri kartaa wixii ku saabsan qaabka suuq u shaqeeyo iyo waxyaalaha sababta trade loo qaato akademiyan ku xirayna hadduu ilaahay idmo marka insha allah wax barta oo shaqaysta ayaan leenahay dhammaantiina kusoo dhawaada channelka Muga Forex insha allah casharada kale oo ku jiro iyo qaabka suuqa u qaatay iyo waxyaalaha kale ku jiro oo simulationada ku jiraan kulley intaas hala daawado qofka isaga wax badan ka fahmi doona hadduu ilaahay idmo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته